بريتولة وأي تاريخ إثيوبيا تهاي صدق اللواتنك بشتبناد لبكون يستدي طبعا أما تاريخ الميلاد وأي تهاي صدق بشلحاد لبكون يليه اللواتن وح ذلك يديجان كنا بقبل لابن دونا امتحان كشهادة لبي طبنادك امتحان كديجان كنا وح أفريسان دونا سجالية طبعا كن بقول يكونتني تدوار دي oo 32% ama boqolkiiba 32 kamidi ay ku qaadan doonaan online 69 boqolkiibana ay ku qaadan doonaan waraaqo ardadaasi waxay ka kala imaanayaan dugsiyo 192 dugsiya sanadkan goobaha online-ka lagu qaadanayo waa la kordhiyay deegaankeena waxa lagu qaadan doonaa 10 dugsi oo deegaankeena iyo 2 jaamacadood waxayna kala yihiin dugsiga sare ee Jigjiga dugsiga hooyiga ee Jigjiga dugsiga sare ee Wachaale dugsiga sare ee Qabri Bayax dugsiga sare ee Shiniile dugsiga hooyiga ee Fiiq dugsiga sare ee Goday dugsiga sare ee Sangub oo dhagax buur ah kulliyadda xirfadaha ee dhagax buur kulliyadda xirfadaha ee magaalada Goday iyo jaamacadda Jigjiga iyo jaamacadda Qabri Dahar dhanka kale waxa ay ardada soo hadhay ku qaadan doonaan nidaam waraaqa ah ardada waraaqaha ku qaadanaya oo boqolkiiba 69 waxay ku kala qaadan doonaan 6 jaamacadood oo kala ah jaamacadda Jigjiga waxa ku qaadan doona gobolada Faafan Jarar Nogob iyo Erar jaamacadda Qabri Dahar waxa ku qaadan doona jaamacadda Qabri Dahar gobolada Doolo Qorxay Nogob Shabeelle Afdheer iyo Liibaan jaamacadda Dirdhaban waxa ku qaadan doona gobolka City jaamacadda Hawaasa waxa ku qaadan doona degmooyinka Boqol Maayo Filtu iyo Dakasuftu oo ka tirsan gobolka Liibaan jaamacadda Dilla waxa ku qaadan doona gobolka Daawa jaamacadda Madawalaabu waxa ku qaadan doona degmooyinka Guradhaamole Qorabaqaqsa iyo Qarsaadulla hadaan u soo noqono qaabka imtixaanka loo qaadayo imtixaanku wuxuu yeelanayaa 6 wareeg saddexda wareega ugu horeeya waxa qaadanaya ardada natural science-ga ama cilmiga dabiiciga baratay sidoo kale saddexda wareega dambe waxa qaadanaya ardada social science-ga ee baratay cilmiga bulshada wareega hore wuxuu bilaabmayaa Britole oo 23ka bisha tobnaad 2018 wuxuu soconayaa ilaa iyo 3da bisha 11aad 2018 wareega labaad wuxuu bilaabmayaa 6da bisha 11aad 2018 wuxuuna dhamaanayaa 16 bisha 11aad 2018 waxaan marka rabaa inaan fariinta ku aadan ardada waalidiinta iyo macallimiinta iyo maamulada aan halkan ka jeediyo haddaba maanta waxa dhammaan goobaha imtixaanka laga bixinayaa orientationka ama wacyigelinta ku saabsan nidaamka imtixaanka loo galayo ardada waxa loo sheegi doonaa dhammaan geedi socodka imtixaanku nooca uu noqon doono waxa kale oo loo sheegi doonaa waxyaabaha ka reeban ardayga iyo waxyaabaha loo ogol yahay dhanka kale ardada waxa la siin doonaa jadwalka imtixaanka oo dhameystiran ardada ku qaadanaysa online-ka oo Britole imtixaankooda uu bilaabmi doono waxa la siin doonaa habraaca online-ku ku bixi doono iyo waxyaabaha loo ogol yahay ardayga online-ka qaadanaya waxaan rajaynayaa marka ardadu inay si mugle u dhageystaan orientationka la siin doono isla markaana u hoggaansamaan awaamiirta iska ilaaliyaan waxyaabaha loo diiday ama laga mamnuucay ilaaliyaan anshaxa iyo ixtiraamka imtixaanka ay ilaaliyaan nidaamka discipline-ka ah ee looga baahan yahay goobaha imtixaanka lagu qaadanayo waxa kale oo aan rajaynayaa in waalidiintu ay ardadooda la soo dardaarmaan isla markaana ay soo dhiirigeliyaan waxaan rajaynayaa maamuladu inay sidoo kale iyaguna wacyigelinta loo baahan yahay soo siiyaan ardayda ku qaadanaysa imtixaanaadka jaamacadaha ee goobahoodii ka soo tagaya ay xaqiijiyaan badqabkooda ilaa inta ay goobtooda ka imanayaan sidoo kale ilaa oo loogu celinayo guryahoodii iyo waalidiintooda waxaan rajaynayaa sanadkan inuu ka gadisnaado sanadadii hore natiijadiisuna ay ka fiicnaato natiijooyinkii hore aan arkaynay sababtoo ah laga bilaabo bishii labaad ee sanadkan ilaa iyo bisha tobnaad waxaa ardada la siinayay nidaam kabis ah oo dheeriya kabista waxa ka qayb qaadanayay macallimiin loo xushay oo tayo iyo waayo aragnimo lagu qaatay
xafiiska waxbarashadu sanadkan wuxuu si gaar ah culayska u saaray caasimadaha gobolada iyo magaalooyinka. arday ka badan ilaa 6,000 oo arday ayaa kabistooda si gaar ah xafiisku gacanta ugu hayay. waxaa kale oo dib u habeyn lagu sameeyay nidaamka baris-barasho ee dugsiga sare gaar ahaan galaaska 12aad, taasoo aan aaminsanahay in nidaamka waxbarasho iyo tayada waxbarasho ay kor u soo qaadayso. waxaa kale oo la sameeyay wacyigelin ballaaran oo loo fidiyay ardada iyo waalidiinta iyo maamulka dugsiyada iyo maamulada kala gedisan. waxaan marka filaynaa wacyigelintaasina inay kaalin weyn oo mugla ka qaadan doonto natiijada ardada laga filayo. si guud waxaan halkan Ilaahay uga baryayaa ardada qaadanaysa imtixaanka 12aadka in Ilaahay u fudaydiyo imtixaanka isla markaana ay natiijo wax ku oole ka soo hooyaan sanadkan. waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in ay midhaha dadaalkoodii arki doonaan.